السلام عليكم أصحابي وإن سلامي دمانتي meel buu aad joogtaan asxaabta qaar kamid ayaa waxay soo weydiiyeen qaabka loola soconayo YouTube studio-haaga maalintii ama 48 saac daqiiqadaha la daawaday ama 60 sakiin ee ugu dambeysay daawashadeeda haddaba wax dhib badan ma aha wax yar marka u baahantahay inaad ogaatid waxaad soo furanaysaa YouTube studio-gaada kabacdi halkaas ayuu ku keenayaa meeshaan kor ay ku qoran tahay real time views waa 46 saac ugu dambeysay inta qof ay ku daawatay sida arkaysiin 200 ayaa daawatay 60 minute markaasina 40 saac soo furanaysaa kabacdina oo meesha ugu korayso 60 daqiiqo ee ugu dambeysay 42 qof ayaa daawatay time-kani waa isla meesha ka hooseyso ay ku qoran tahay watch time minutes kabacdi halkaas ayuu ku keenayaa last 20 days 8 ayuu hadda saaran yahay fartaas list ayaa soo furanaysaa kabacdina halkaasaa 48 saac ugu dambeysay 312 daqiiqo ayaa daawaday 60 minute halkaasaa waxa weyn waa intaasaa waxaa kaloo ku xigo marka u baahan tahay video kasta inta saac la daawo markaana waata aad ratid halkaas ayaa soo furanaysaa video ayaa ku dhufanaysaa